nin dhalinyaro ah oo Alla ka cabsi badan. Noloshiisa waxay ahayd mid dhexdhexaad ah. Habeen walba waxa uu caado ka yeeshay inuu seexdo salaada cishaaga kadib, si uu u soo tooso saacado kadib una tukado salaatuleylka, si uu Alle u baryo habeenkii xilliga dambe. Habeen habeenada ka mid ah ayaa waxa uu isku dayay inuu seexdo xilliga uu seexan jiray habeen walba, laakiin waa uu awoodi waayay. Hurdadii ayaa ka imaan weysay. Guriga ayuu ka baxay, waxa uuna qaatay gaarigiisa, isaga oo aanan ogeyn meesha uu u socdo. Si kedis ah waxa uu is arkay asagoo taagan guri qadiim ah hortiisa. Guriga hortiisa waxaa fadhisay haweeney sabool ah oo xambaarsaneyd canug yar. Waxay ahayd mid ooynaysa oo dhahaysa, "Yaa Rabbi, rasuulkaaga suuban waxa uu ku yidhi xadiiskiisa, haddii aad wax weydiisanaysid, Alle wax weydiiso. Haddii aad kaalmo u baahan tahay, Alle kaalmo weydiiso. Waad i aragtaa inaan qaatay qadarta. Waxaan u imaaday ninka i qaba walaalkiisa, waxa uuna iga xirtay albaabkiisa. Waxaana ogahay in marnaba adiga albaabkaaga uusan xirmin." Ninkii waxa uu ka soo degay gaarigii, waxa uuna u soo dhowaaday haweeneydii. Waxa uu weydiiyey waxa ku dhacay oo ay la ooynayso. Waxa ayna ugu jawaabtay, "Anigu waxaan ahay haweeney uu ka geeriyooday ninkeedii. Canugeyga yarna aad ayuu iga xanuunsan yahay. Waxaana u imaaday ninkeyga walaalkiis si uu iigu raaco isbitaalka, laakiin waxa uu iga soo xirtay albaabkiisa. Waa uuna isoo buriyay." Ninkii waxa uu soo qaaday haweeneydii iyo canugeedii. Waxa uuna u keenay nin ay saaxiibo yihiin oo dhakhtar ah. Waxa uuna baaray canugii, waxa uuna u qoray dawooyin, asaga oo aanan ka qaadin wax lacag ah. Ninkii waxa uu haweeneydii siiyey xoogaa lacag ah, waxa uuna keenay gurigoodii. Markii uu keenay guriga, waxa uu arkay alaab qadiim ah oo guriga u taalo. Waxa uuna u sheegay inuu isoo iibinayo alaab cusub. Waxa uuna u sheegay in bil walba uu siin doono lacag. Haweeneydii waa ay oysay, waxayna Alle uga barisay inuu ka ilaaliyo wax kastoo dhib ah. Waxa ayna ku dhahday riyadeeda ugu weyn waxa ay ahayd in canugeyga aan geeyo isbitaal. Ninkii waxa uu ku jawaabay, "Waxaa ceeb ka nasahan Ilaahay, kaas oo indhahayga ka fogeeyo hurdada. Allahaasoo i waafajiyay in xilli dambe aan soo qaato gaarigeyga, aana soo aado meel aanan garanaynin, si aan adiga kula kulmo." Ninkii waxa uu ku soo noqday gurigiisa, waxa uuna habeenkii oo dhan baryay Ilaahay. Waa uuna seexday ayadoo salaadii subax ay ka dhiman tahay waqti yar. Subaxii markii uu soo kacay, waxa uu soo aaday shaqadiisa. Waxa uuna arkay gaari dardaray wiil dhalinyaro ah. Gaarigiina wuu ka baxsaday meesha inta aysan cidna arkin. Ninkii waxa uu ka soo degay gaarigiisa, waxa uuna qaaday wiilkii dhaawaca ahaa, waxa uuna geeyay isbitaalka. Markii uu isbitaalka soo gaaray, mid ka mid ah kalkaalisooyinka ayaa waxa ay ku dhahday, "Ninkii dhaawaca ahaa ee aad keentay waa uu geeriyooday." Ninkii dhalinyarta ahaa waxaa la geeyay mid ka mid ah saldhigyada booliska ee u dhowaa isbitaalka. Waxaana lagu eedeeyay inuu dilay wiilka geeriyooday. Ninkii waa uu yaabay. Kadib waxa uu xasuustay xadiiskii Nabiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ee ahaa, baryada qofka dhibanaha ah ee ku duceysta ducadani: "Laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin." Ilaahayow, Alle kale ma jiro oon adiga ahayn.
adiga xumaan ka nasahan. Anigu waxaan ka mid ahay dadka naftooda la dulmiyey. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Ma jiro qof muslim ah oo la dulmiyey oo ku duceysto ducadan, xataa haddii uu ku jiro caloosha kalluumada ugu weyn. Ilaa Ilaahay waa uu ka ajiibaa ducadaas. Waxa uu ku duceystay ducadii si Ilaahay uu uga kor qaado murugadan si kadis ah. Ninkii dambi baaraha ahaa ee qaabilsanaa kiiskan ayaa waxa uu u yeeray ninka dhalinyarta ah qolka dambe baarista. Waa uuna raaligeliyey, waa uuna sii daayey. Waxa uuna u sheegay in dhakhaatiirta isbitaalka ay soo waceen, ayna ku wargeliyeen in ninkii uu weli nool yahay oo uusan dhimanin. Waa uu suuxsanaa, waxaana loo maleynayay inuu geeriyooday. Wiilkii dhaawaca ahaa ayaa sheegay in uu ninkani uusan dilin, laakiin naftiisa uu badbaadiyey. Inta uu nool yahayna abaal uu u hayn doono. Ninkii waa uu dhoola cadeeyey, waxa uuna in badan u mahadceliyey Ilaahay. Waxa uuna soo xasuustay haweeneydii ugu duceysay in Ilaahay uu ka ilaaliyo wax kastoo dhib ah. Waxa uuna hubsaday in haddii mar uu abaal u galo qof, marna uusan ka dayacmaynin. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.